بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسنا قيارتا نلا سعوتا إذل كيمبا ميل كستوا جوكتان waxaan idin leenahay soo dhawaada waa koobi 20ka bisha Oktoobar sanadka 2025 baahinta aroornimo ee saakana qodobada aan idinkugu hayo waxa kamid ah dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta ee Hamas ayaa ku waramay in ay diyaar u yihiin wada hadal qaran oo ku saabsan hubka dhigista ee la doonayo inay sameeyaan dawladda Mareykanka iyo waliba dhinacyada dhaxdhaxaadayaasha ah iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan xaaladda maamulka la doonayo in loo dhiso magaalada dagaaladu ay ka soconayeen muddada dheer qaramada midoobana waxa ay ku dhawaaqday in magaaladaasi go'doonsan loo ogolaaday badeecadii ugu horeysay oo ganacsi inay u tallaabaan halkaasi iyadoo lagu soo waramayo sidoo kale dugsiyada waxbarashada qaarkood in la furay oo 300,000 oo arday ay fariisteen iskuulla jajabsan isla markaana hay'addu ay ku tilmaamayso in xaaladdu ay aad u adag tahay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxa uu digniin adag u diray dawladda Shiinaha waxana sidoo kale uu ballan qaaday inay ka go'an tahay in uu la kulmo madaxweynaha waddankaasi Shiinaha marka uu booqanayo waddanka Kuuriyada Koonfureed arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli canshuuraha labada waddan isku soo rogayaan ay aad u sii kordhayso maalmihii ugu dambeysay waxaan sidoo kale eegi doonaa wararka ka imaanaya gobolka bariga dhexe ku saabsan cadaadiska uu wajahaya ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyadoo maanta lagu wado nidaamka Israel dhulka ay ka qaateen Falastiiniyiinta in uu gaaro madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka DJ Vance akhyaarta inala socota ay qodobadaas iyo warar kale ayaan ku falanqeynayaa barnaamijka aroornimo waxaan ahay Cabdicasiis Barrow idilkiinba meel kasta Falastiiniyiinta ay hubaysan ayaa ku waramaysa in ay diyaar u yihiin wada hadal qaran oo ku saabsan arrimaha hubka dhigistooda ay sida weyn u naawilayaan dawladaha waaweyn ee adduunka oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo dhinacyada dhaxdhaxaadayaasha kooxdan ayaa afayeen u hadla waxa uu tilmaamay in la gaaray xilligii Falastiiniyiintu ay ka wada hadli lahaayeen arrinta qaran ee ku saabsan hubka iyo waliba waxa laga yeelayo halganka gobonimo doonka ee Falastiiniyiinta gacantooda ku jira hadalkan ayaa waxa uu soo baxaya iyadoo magaalada Qaahira ay ku sugan yihiin xubno sare oo ka tirsan xafiiska siyaasadda kooxda kuwaasi oo kala xaajoonaya dawladda Masar oo hogaamiye Cabdifitaax al-Siisi maalinta xigta ee dagaalka iyadoo kooxda ay si weyn u ballan qaadeen in aanay marnaba doonayn inay wax dowr ah ku yeeshaan maamulka farsamayaqaanada ah ee la doonayo inuu hogaamiyo magaalada colaaduhu ay ka taagnaayeen ee Gaza dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta ee Hamas ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wada hadal qaran oo dhaba oo lagu gorfeynayo arrinta hubka dhigista iyo mustaqbalka magaaladaasi iyagoo xusay in tallaabo kasta oo loo qaadayo dhankaasi ay tahay in lagu saleeyo is-afgarad iyo heshiis qaran oo ballaaran oo dhammaan qayb ay ku noqdaan Falastiiniyiinta si mustaqbalka iyo aayahooda uu u ahaado mid ay iyagu leeyihiin afayeen u hadla kooxdaasi oo lagu magacaabo Xaasim Qaasim ayaa u sheegay telefishinka Al-Arabiya in dhammaan xubnaha iyo saraakiisha kooxdu ay si buuxda uga go'an tahay fulinta heshiiska xabad joojinta ah ee magaaladaasi isla markaana aysan xiriir toos ah oo hadda u dhaxeeya kooxaha ku sugan Rafax uusan jirin halkaasi oo shalay ay ka dhaceen iska horimaadyo cusub oo sababay dagaalo xoog leh inay ka dhacaan halkaasi isla markaana ay ku dhinteen 57 qofood maalintii Axadda aynu ka soo gudubnay sida ay ku warameen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka arrinta hubka dhigista waa mid u baahan dood iyo wada tashi qaran waxaan rumaysanahay in dhammaan xoogagga Falastiiniyiintu ay awoodaan inay gaaraan faham midaysan oo ku saabsan mustaqbalka difaaca qaran ayuu Qaasim u sheegay telefishinka Al-Arabiya wuxuu intaas ku daray in wafdi ka socda kooxda oo hadda ku sugan yahay Qaahira halkaas oo ay kala hadlayaan mas'uuliyiin Masar ah marxaladda xigta heshiiska hadda la gaaray ee magaalada Gaza ka hirgalay Qaasim ayaa carabka ku adkeeyay in xabad joojintu ay noqon doonto ama aysan noqon karin buu yiri mid waarta ilaa la helo wada hadal qaran oo dhab ah oo u dhaxeeya dhammaan dhinacyada Falastiiniyiinta ah ee gobonimada u halgamaya
xamaas ayuu sidoo kale ku dhawaaqday in ay damacsanayn kaalin maamulka ay ka qaadan karaan ee ku saabsan dagaalka marka laga baxo balse ay diyaar u yihiin taageerada cid kasta oo heshiis qaran ku yimaada oo maamuli doonta daanta qasa ay dagaaladu ay halakeeyeen sida ay dooda u dhigeen dhanka kale Fahmi As-Sasiri oo ah xogayaha guud ee guddiga qaran ee Falastiin ayaa sheegay in marxaladda hadda la joogo ay u baahan tahay isfahan Falastiini ah iyo taasi oo isku duwitaankooda ay yeeshaan dowladaha carabta isagoo ku baaqay in kooxdu ay u gudubto fikradda maamul gooni ah oo ka madax bannaan guud ahaanba dhulka Falastiin lana mideeyo hubka iyo waliba dadaalada Falastiiniyiintu ay ku doonayaan inay noqdaan nidaam dunida u aqoonsan yahay sidoo kale Anwar Rajab oo ah afayeenka ciidamada madaniga ah ee Falastiin ayaa sheegay in wali kooxda Xamaas aysan u hoggaansamin xabad joojinta isagoo ku eedeeyay in kooxdu ay doonayso inay kor u qaaddo saameynteeda gudaha magaalada dhanka kale Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Trump ayaa isniintii aynu ka soo gudubna sheegay in uu siinayo kooxdaasi fursad yar oo ku saabsan ixtiraamka heshiiska xabad joojinta balse uu baabi'in doono haddii ay jabiso heshiiskaasi sida uu Trump ku dooday Trump ayaa intaas ku daray in Washington ay ku dadaalayso tijaabinta lagu ilaalinayo xabad joojinta isagoo sheegay in uusan wali weydiin Israel inay dib u bilowdo dagaalka hadalka Trump ayaa waxa uu ku soo aadayaa isagoo wakiiladiisa Witkoff iyo waliba Jared Kushner oo u soo diray Israel oo ay kulan la yeesheen Netanyahu isla markaana subaxnimadan saaka lagu wado inuu halkaasi soo gaaro madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka D.J. Vance hay-adda qaramada midoobay ee maamulka Falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horeysay Israel ay aqbashay in magaalada Gaza ay u fasaxdo gaadiidka sida shaxnadaha ganacsiga taas oo wax naruuro ah abuuraysa marka la fiiriyo xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka taagan afayeen u hadlay hay-addan qaramada midoobay ayaa sidoo kale tilmaamay in la gaaray xilligii iskuulaadka ay bilaabi lahaayeen isla markaana ay hadda diyaariyeen 300,000 oo caruur ah inay aadaan waxbarashada laakiin goobaha ay wax ku baranayaan ayaa waxay u muuqataa inay tahay mid aad u burbursan oo u baahan dib u dhis hay-addu waxay diraysaa qayladhaan caalami ah sida uu qoray telefishinka Al Arabiya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Falastiiniyiinta ee UNRWA UNRWA loo yaqaano ee qaramada midoobay u qaabilsan Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in Israel ay ogolaatay in qaar ka mid ah badeecooyinka ganacsiga ay galaan gudaha magaalada godoonsan hase ahaatee qiimaha suuqyada uu aad u sareeyo iyadoo dadku aysan tahli karin inay iibsadaan raashinkaasi soo gaaray magaalada oo ganacsiga ku soo galay afayeenka warbaahinta u qaabilsan hay-addaasi oo lagu magacaabo Cadnaan Abu Xasna ayaa sheegay in xaaladda hadda jirta ay muujinayso baahi weyn oo loo qabo nidaam maamul iyo isku duwid si wax looga qabto gargaarka bini'aadanimada iyo soo celinta adeegyada aasaasiga waa nolosha sida uu hadalkiisa ku tilmaamay Abu Xasna oo la hadlay telefishinka Al Arabiya iyo kan la mataanka ee Al Hadath ayaa waxa uu sheegay in UNRWA ay ku dadaalayso inay dib u soo celiso adeegyada muhiimka ah inkastoo ay jiraan carqalado waaweyn oo amni oo la xiriira saadka iyo nolosha dadka ay u baahan yihiin wuxuu intaasi ku daray in hay-addu ay ku guuleysatay in 300,000 oo caruur ah ay dib ugu laabtaan fasalada waxbarashada UNRWA ee magaaladaasi si ay qayb uga noqdaan qorshaha fulinta waxbarashada si tartiibana loo bilaabo sidoo kale Abu Xasna waxa uu qeexay in shaxnadaha gargaarka ee qaramada midoobay ay ku filan yihiin dadka ku nool magaaladaasi 3 bilood oo soo socota balse ay ku xayiran yihiin halka loo yaqaan Rafax oo aysan gudaha u soo gali karin magaaladaasi waxa uu xusay in dagaalka uu sababay musiibo bini'aadanimo tii ugu xumayd inta badan dadka deganaa ay ka barakaceen guryahooda buu yiri magaaladaasi
halka hay-adaha caafimaadkuna ay ku adkaatay in ay wax ka qabtaan xaaladan si ay ula tacaalaan gurmadka caafimaadka ay dadka u baahan yihiin. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump waxa uu ka waramay xiisada sii cuslaanaysa